بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. إلهي سبحانه وتعالى يا مهله waxaan ku jirnaa bishii barakaysnayd ee Ramadaan waa 1440 taariikhda hijriga waxaan jecelahay halkan walaalaha muslimiinta aan la wadaagno bisha Ramadaan waa bilaha Allah subhanahu wa ta'ala dambiyada uu ku dhaafo waa muusim iyo xilli ugu talagalay dadka muslimiinta Ilaahay u soo noqdaan oo toobad keenaan oo soo laamaan xumihii ka dhacayna lagaga dhaafo waxaan jecelahay halkan kaga qayb qaadano soo gudbino asbaabaha keena in dambiga lagu dhaafo bishan barakaysan sababta koowaad asbaabaha keena waa qofka soomka bisha Ramadaan sida nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wassalaam uu yiri man saama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi qofka soo bisha Ramadaan isagoo rumaysan oo iimaan la yimiday ajri doona oo ikhlaas la yimiday dambigiisa ayaa la dhaafaa sababta labaad waa nooleynta bisha Ramadaan in la nooleeyo oo qofku habeenkii qiyaamul leyl iyo salaada taraawiixda ka qayb qaato nabiga waxa ka sugnaatay calayhi salaatu wassalaam ina uu yiri man qaama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi qofka istaaga ee nooleeya bisha Ramadaan isagoo rumaysan ajri doona ikhlaas la yimiday dambigiisa ayaa la dhaafaya sida nabiga calayhi salaam ka sugnaatay xadiiskaasi isla qiyaamul leyl nooleynta habeenka oo sababta saddexaada habeenada laylatul qadriga ama habeen ku jiro waxa nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wassalaam man qaama laylatul qadri إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه حديث واسكو هذا معنى وانا حديث صحيحه قفك نوليا habeenka leelatul qadriga isagoo rumaysan oo dar Ilaahay ka tahay ikhlaasa dambigiisa ayaa la dhaafaya waxa sababta afraada inuu qofku ka fogaado dambiyada waaweyn nabiga calayhi salaatu wassalaam as-salawaatul khams wal jumu'a ila al jumu'a wa ramadaan ila ramadaan mukaffiratun lima baynahunna idha ijtinabatil kabaa'ir shanta salaadood oo marka maalintii iyo jumcihii oo weegiya iyo Ramadaanta oo sanadkiya qofka marka dambigiisa lagu dhaafaa markuu ka fogaado dambiyada waaweyn waxa kamid ah asbaabaha qofka loogu dambi dhaafo qofku Ilaahay soo noqdo Ilaahay uu toobad keeno nabiga calayhi salaam waxa ka sugnaatay xadiis kala duwan inuu nabigu yiri ya ayuha naas tuubu ila Allah dadu Ilaahay toobad keena maalintii waxaan toobad keenaa 7 jeer in ka badan xadiiska qaarkeedna 100 jeer ayaan u noqdaa Abdullah ibn Umar wakiilaha nabiga waxaan u tirinay majliska kaliya iyo golaha kaliya fadhiyo inuu yiraahdo 100 jeer rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim walaalka muslimka walaasha muslimada waa kuwaasi asbaabaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambiga ku dhaafo waa fursad dahabiya ka faa'iideyso sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam